waa qaybteeni labaad ee sidaabgaraynta virtual lab. Hore waxaan usoo aragnay sida loo sidaabgareeyo pfSense. Muuqaalkeena waxaan ku sidaabgarayn doonaa computeriska kale ah Ubuntu, Windows 10 iyo Metasploitable. Kaalin Linux isagu hore ayuu noogu jiray, markaa isaga network ayuu baynu ku xiriirinaynaa. Si aad ugu xiriirsatana waxaad taabanaysaa settingska, kadibna network routerka koowaad waxaad ka dhiganaysaa internal network. sidaasina ku samee dhammaan saddexda computerba. Okay, ugu horreyn la soo degno ISO fileska Ubuntu, Windows iyo Metasploitable. Intaas marka soo degsato aynu ka bilowno Ubuntu. inta start taaban network ka soo dhig internal. aynu jeegarayno in mashiinkan Ubuntu uu ku jiro networkii aynu samaynay pfSense. sida halkan nooga muuqata Ubuntu way ku jira networka. Okay, aynu isna la soo degno Windows 10. systemkana waxaad siisaa 4 RAM ah iyo 2 CPU ah si uu si dhaqso loogu shaqeeyo, waayo kan waa ka culus yahay kuwa kale. hubina in storage-ku ugu yaraan yahay 40 GB. network internal ka dhig, kadibna start taabo.
ugu dambayn metasploitable isna waa simple oo sidii kuwii hore ayuu u soo daabgareynaysaa. intaas ay noogu egyahay muuqaalkeena maanta. waxaa inoo hadhay waa xoogaa configurations ama isku hagaaji yar kadibna waanu isticmaali doonaa virtual labkeenan haddii alla idmo. wixii cilado ama aad fahmi weydo waxaad kusoo gudbin kartaa telegramkeena iyo laqayga descriptionka. wassalaamu calaykum.